2016 17 18 ilaa wixii ka horeeyay magaalada Muqdisho aroosyada waxa mar walba laga daari jiray oo mar ku dhawaaday inay noqdaan hidii dhaqan aan looga maarmin aroosyada heesahan alaas ka baxaya waa aroos waa aroos waa aroos waa aroos waa aroos hadda aroos walba magaalada Muqdisho waa barnaamijkii muxuu ku fiican yahay fanaankaagu Part 2 waa fanaan weyn oo cid qaaliya qadarin badan qursina aan aqoonin waa fanaanka qeyrkiis iyo qaar kale oo ka soo horjeedaba ay u qareen inuu yahay mucjisada fanka qamar suugaani waa fanaan isku kalsoon kaas oo mar walba muujiya karti iyo dadaal lana yimid laxan casri ah oo lala wada yaabay liil baliil waa fanaan codkiisu uusan ceeb lahayn jamaal uu eebisiiyey kadib waa mid jirkiisa dhistay kaas oo jarmal iyo gaal jaahil ah oo dhan meel naga saaray waa barnaamijka muxuu ku fiican yahay fanaankaagu Part 1 bulsho jacayl iyo bashaashnimo kaftan iyo dadka qoslin waayo aragnimo iyo war aan lala gamban Master Gabow idleere astaan qaran iyo aqyaarnimo waa mid afgaaban oo aqli badan cod qurxoon oo cajiib ahna leh Master Yirisow nimcaan hilaac fankiisa oo uu hormariyo iyo familkiisa oo uu daryeelo farsamo odaynimo waji furnaan faraxsanaan waa fanaan sharaftiis Master White dayaxdal nuurshe waxaan aad iyo aad ugu xumahay xariga walaalkay Bilaal uu ku xiran yahay Somaliland waxaan maqli jiray rag walaalo wax u dhaama ma lahan Somaliland dadkooda iyo dawladoodaba waxaan ka codsanaynaa in ninkaas dhalinyarada ah majaajilistaha ahaa ardayga ahaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo dunida dacaladeeda ku kala noolna uu ahaa role model la sii daayo oo xurriyadiisa dib u helo nin habari dhashay baa la yiri hal ma seegi waayo maqaldamo waa Ilaahay balse Bilaal wuxuu marayaa ciqaab uusan u qalmin qof walba oo uu fiidiyogan gaar mid baan u sheegayaa adigoon xumaan caloosha ku haynin cidna aan ugu farqiga u dhaxeeya gabdhaha Soomaaliyeed markay ay dalka joogaan iyo markay ay dibadda tagaan Part 1 gabdhaha Soomaaliyeed markay ay dalka joogaan intooda badan waa kuwa wax barta oo bilaash ma aha noloshoodu waana kuwa aad adag oo u dagaalama noloshooda iyo tan waalidkooda dhibaatada ugu weyn oo haysatana waa iscadeys calaaf warja ah oo caadi laga dhigo sidoo kale gabdhaha Soomaaliyeed markay ay qurbaha tagaan inta badan laguma arko dulmi iyo doqonnimo oo wali waa kuwa aad adag oo halgan badan waa haddii aan dad la maagayn iyagana dhibaatada ugu weyn oo haysata waa labiska oo ka dhuma af Soomaaliga oo aan erey laga aqoon qaarkood nin aan yaabin baa wuxuu yiri waan yaabay YouTube-leyda Soomaalida aan la yaabay oo qaarkood aqliga ma ku yaro warka kama fiirsadaan mise iimaanka ku yaro dhaqaal raadis halkaas ka galay waa su'aasha iga yaabisay ayaa iga jawaabaya waxa la raadinayay erey soo jiidan kara daawadayaasha balse waxa lagu soo qoray mid ama ka ku riday intii wax garatay bal aan isla aragno mawduucyadii ugu foosh xumaa ee ebid lagu soo gudbiyo YouTube-ka rasmi rays ninkeedii Farxaan oo gabar qurba joog ah ka raacay fursadda ugu wanaagsan ee uur lagu yeelan karo YouTuber TikToker fanaan siyaasi wuxuu doonaba ha ahaadee ma jiro qof binaadan oo ku dhiiran kara inuu dhaho waxaan ahay ceebka saliim maqaldama ah hase ahaatee waxa hubaal ah inay aad u yar yihiin inta qirata oo tiraahda haa waan qaldannahay si walbaba ha ahaatee waxa halkan TikTok ama guud ahaan social media uu qof walba ku soo gudbiyaa wixii fikirkiisa ah iyo war 100% kaftan ah waxaase iga talahay in qof walba uu ka fiirsado hadalkiisa ficilkiisa iyo waxa uu sameeyo ka hor inta aysan saameyn xun ku yeelan noloshiisa dambe ogow in ay ku daawanayaan dad adiga fiidiyoga sameynaya 100 jeer WhatsApp-ka wali ma ku aragtay mid statuskiisa aysan fiirsan xitaa 10 qof oo 10 mar oo isku xigta ku soo diraya galab wanaagsan my fanis adna ma ugu jawaabtay oo goorma faniska yeelatay waayabe TikTok wali ma ku aragtay mid aan haysan 10,000 oo qof oo ku dhahaya my fanis maanta Jaanis ayaa su'aasha doontin isoo weydiiyay waan idinkaga jawaabaya adna ma ugu jawaabtay maanta bayuu ka horeysay maxaa ku weydiiyaa Instagram wali ma ku aragtay qof aadan aqoon oo kula show baan qabsanaya oo waxaan gaaray 50,000 kasoo qaybgal wanaagsan waan $5 adna ma ugu jawaabtay oo ma iska sadaqay waxaan arkay asxaab badan oo ii soo qoraya comment sidaan oo kala ah iyo xitaa qaar si private ah iga codsanaya ka hadalka arintan hase ahaatee ma rabo in aan wax badan ka dhaho maxaa yeelay wax badan maba ka ogi markii aad qof weyn tahayna ma fiicna inaad iskaga fududaato kiis aadan xog fiican ka haynin waxaan rabaa inaan mid u sheego asxaabta TikTok kuwaas oo arintan ugu maadaysanaya sida musalsal shactira ah waxa aad macquul u ah inuu qof qalbigiisa saameeynaya ama uu dhibsanayo ka hadalka iyo kumaadaysiga arintan ani ahaan ima muuqato arin qosol ah ama sidaas fani u ah sidoo kale hadii 2016 17 18 19 TikTok hadan soo galo waxa ii soo bixi jiro challenge wali ah ka ahaa kuwan waa ii bootesi kode maxaan ku bootay ani wali yaqaanay maluu kasayo maxamed cali kala feer ku dhifta cirka u diri laba cajilan soo fiirsadi ka bacda soo dhacay ya waxaan ku duceysanahay haddii aan noolahay ama haddii aan nooleen
2020na tiktok markaan soo galo waxaa mar walba iga soo horbaxaya kuwaan gabdhaha Soomaaliyeed aniga oon kala qadqaadayn sharaf iyo qurux iyo qiime leeyihiin qof walba oo inaga mid ahna qadarin bay ka mudan yihiin iyo in qalad laga ilaaliyo waxay darteen u maraan qaxar oo wayna dhaleen way noo dhaxeen darteen bay u dhinteen oo dib oo idil way naga ilaaliyeen uma mahad celin karno si walba oo aan hadal macaan iyo mahadsanidin u dhahno waxaa hubaal ah in ay weli naga dhex buuxaan qaar yar oo qaloocan kuwaas oo aan qiimaheedii garan oo qayru mas'uul ah daba dhalinyaro waxaa iga tala in aan ilaalino qalbiyada gabdhaha oo aanan lumin kalsoonida quruxda badan ee ay weli muddo dheer oo aan muxibo loo muujin abaayo magacaa imis barakarnaana aan la dhihin kadib gabar Facebook ku soo qortay inaan open relationship ree Facebook oo soo leeb maahan salaad afbaqaar oo aad taqaano aysan jirin xitaa cid salaanta ka qaadaysa inuu ku yiraahdo waa suldaan salaad ee soo dirsa sawirka jimcaha status kugu casuumay ree WhatsApp oo soo leeb maahan mid aadan weligaa arag oo magac uusan lahayn isticmaalay markuu dhowr kun gaaro inuu dad yasoo is yiraahdo magaca leedahay ree Instagram oo soo leeb maahan waayeeladii ood ka waasheen gabdhihii hore ee Soomaalidu waxay gooni u lahaayeen geesinimo garaad badni iyo gobonimo waxaa la ogaa inaysan xujo badnayn xan iyo xog badnayn oo raggu haddii uu waxaysto iyo haddii uusan waxaysanba iyadu haa iyo waa ogolaha unbay lahayd wixii hanti iyo ka hadalkeedana waalidka u geed fariisan jiray kuwa hadda jira warkoodii oo dhanba wuxuu noqday ajaaniibta oo ilgaara lagu haayo Soomaaliga oo layas oo yur iyo waayarta la yiraahdo sharaf dhaqan jacayl iyo wanaag halkaas iska dhig miskiin aad u jeedo oo la yiraahdo maal maxaa haysataa meeqaas iga siin kartaa markaana waa dhowr xaqiiqood oo ku saabsan barta TikTok waa barta kaliya ee aad ku arkayso mid haysta 10k oo followers ah oo ay daba socdaan tobaneeyo xuur lacayn ah oo isku haysta sida taajir haysta 10 milyan oo dollar TikTok waa barta kaliya ee aad ku arkayso laba aan wada dhalan ama aan meher isugu dhicin oo isku dhegdhega ismarxabayn aan waxba ka jirin jirkoo la isku dhaweeyay jacayl been ah oo views iyo love lagu raadiyo TikTok waa barta kaliya ee aad ku arkayso sareeyo guudiisa mafale culimo iyo caamo ibliis iyo aqyaar adaa u yar adaa waa kaftanka layaabka YouTube-ka Soomaalida qaybta koowaad baranki been ah maanta biyaan cabaya baabuur baan soo gatay iyo boqoradii waa baxday boqolaal waayeel dabaala ah iyo war bilaash oo waqti lagu lumiyo YouTube-ka Soomaalida maanta cijiyahan soo jartay ama timaha soo shanleystay mowduuc aan wax macno ah lahayn iimaahis aad u jeedo dhaqaale lagu raadiyo YouTube-ka Soomaalida miskiin aan loo micin oo muraadkiisa lagala shaqeynin ee wareysi been ah lala galay iyo waxbaan ku gadayaa kadibna laga gaardiyo YouTube-ka Soomaalida hay asxaabta soo dhaw welcome iyo soo dhaweyn aan qalbiga jirin oo hadii like laga waayo lagu baloogayo iyo libaax laastiga canaano Facebook ugu wimow aan wada shaqeysan oo lagu yiraahdo sida qof mushaar qaadanaya libaax kuma jeedo subax walba joogtaa iyo 30 jeer oo isku xigto assalaamu calaykum lagu yiraahdo wa calaykum salaam aan laga sugin WhatsApp ugu wimow jaahilnimo challenge laga dhigay iyo iskuulay jihada laga lumiyo comment caay ah oo la raadiyay koobi aan la iskaga mahad celin TikTok ugu wimow magac aadan lahayn oo lagu qaraabtay iyo followda iyo like oo la iskala laabto midkii waxaysta oo wax waa barnaamijka kaftanka xaqiiqda fanaaniinta part 5 xarako waali ah iyo cod xalaal ah fanaanka heesaha ku xadreeyay ee aad muddo markuu heesayo inuu qof meel dheer taagan u qayl dhaaminayo Suldaan Seeraar jimicsi iyo jirdhis la'aan waa fanaanka ugu macluulsan fanaaniinta Soomaaliyeed waana fanaanka kaliya ee guuxa codkiisa uu ka miisaan badan yahay muuqaalka jirkiisa safaan hala fanaanka markuu heesayo u labistay sida madaxweyne qudbeynaya iyo gudoomiyihii hore ee golaha bidaarlayaasha haddana timihiisa korkor u shanleysta Axmed waa barnaamijka kaftanka xaqiiqda fanaaniinta part 4 legend and daayreyn balse uu jab yar sida ilmo uur ku jira fanaanada ficid ka gaaban ee codkeeda macaan heesaha koobiga uga faa'iideysata qaaliladan fanaanka timaha weyn aan wiligiis timajaraha tagin iyo wiilka heesaha dadka ugu oysiyo nimcaan hilaac fanaanka erayada kala bax qalbiyada abwaaniinta ee aan heesiisa madax banaaneen oo mar walba lagu qabsado 17 jirka uu jooga dheer sida 30 jirka Marwaan Yare waa barnaamijka kaftanka xaqiiqda fanaaniinta part 3 fawdo iyo fudeyd aad u jeedo fan aan loo fiirsan ama aan loo fikirin fanaanada faraha fudud ee aan iskeed u labisan fartun balbalaarka madax aan timo lahayn oo aan la lixshoon iyo fanaan kaliya aan la kala garanayn codkiisa iyo muusikiisa saaran dalmar yare sarsar ama jarjar fankana gabigiis barifrif ama sida timihii u xirxir fanaanka fanka halka laxan ka fahmay Omar Barbar laba labees ila xawjacel fanaanka cod waa barnaamijka kaftanka xaqiiqda fanaaniinta part 2 waa fanaanada wali aan la iska wareysan waxa ay fanka ku joogto qofka kaliya ee surwaalka ugu faana sida xijaabka ilbaxnimada nooga dhigtay Xalimo Gowaad fanaanka kaliya ee hindidii Ameerikaanku qurux meel ku saaray aadna ugu mashquulay midabkiisa sidii uu horumarin lahaa bedelka fankiisa dayax dal nuurshe
madaxweynaha raabka iyo maaweeliyaha dhallinyarada xumaan iyo wanaag wax walba uu yeelaba wiilka u daliishaday Somali Music to the Wall Lil Balil. waa barnaamijka kaftanka xaqiiqda fanaaniinta Part 1. fanaanada kaliya ee aad ku taqaan talentigeedan yaa sida la isku qaawiyo codkeeda cid wax ku falaysa ama fiirinaysa malahan sidaas ayay ku tahay fanaanada weyn King Jaamac. xabeeb muusig la saaray labeeso isku cod ahayn cilmi qabaa fanka steelkiis ku joogo qadar keew sax iyo qalad sidoo doono yeelaha murti iyo macmaac wuxuu doono sheegaha welina calankiisu cirka yahay Sharma Boy. kadeed maxaa ku geliya adigoo koobi arkaya waa barnaamijka kaftanka xaqiiqda youtuberada Part 3. xiriir fiyuus iyo lacag lagu raadiyo gobonimo doonka YouTube-ka ee ku soo caanbaxday musalsalkii ka nasiib ka nasaar Najuuc Raale. jiljileec saa'id ah sidii hindidii waa aktarkii oo helay atiriisho fiican oo filimka la jisha way faniskaygu waa sababta aan famil u noqday Nuurdiin KL. hadal goosgoos ah iyo saaxiibtinimo aan silacii rafaad loo marin wanaag iyo xumaan wax walba dhaca waa baranka iyo been la isku raacsan yahay Kamaal Abdul iyo Team Enjoya. shactarool hore waa barnaamijka kaftanka xaqiiqda youtuberada Part 2. macluul maskax iyo madadaalo badan oo aan miisaan dhaxal lahayn iyo sidii wax masqanini inuu yiraahdo hooyoy warsanay liicaad taag aan dhamaanayn hoos ruweelkan gasho waalnaa ama fiyoobaha sax iyo qalad waxba igama gelin ee waa sideen views ku helaa durdurmeedii iyo xasan top. waa hormuudka youtuberada iyo haliyay ku dayasho mudan hello man what's up man asad xaajiyo man ilmo yar oo active ah adno aan ka liidanaya aabood famil wada atoryaal ah awoodda shacabka oo YouTube ku heshay waa kaftanka xaqiiqda youtuberada Part 1. waa miskiinka youtuberada dad badan oo kaamirada kaliya ka yaqaanana ay moodaan munaafiq iyo mid isla weyn Muniir Aqaa. ma garanayo inkiraad u jeediyay Ismaahis mar walba dagaal diyaar u ah ee u soo degdegin Darisla Cabdi. inda fagiig odaynimo laga been sheegay iyo taajirka kaliya ee aan wax baran balse ku qarabto musharax baan ah shilin ku reebay Shiine Culey. hadal la isku dardaro iyo xigmada xabad ka jirno jiliin been ah wadata waa astaanta youtuberada Malaysia.